ujeedadu waa xil wareejin iyo soo dhaweyn wayna inoo dhamaatay runtii waxaan anigu is leeyahay Cabdirashiid dhowr wax baan wadaagnaa oo guud waxaan wadaagnaa Cabdirashiid horta marka koowaad wuxuu soo maray wasiir ku-xigeen anuna waxaan soo maray wasiir ku-xigeenkuna wuxuu qiimeyn karaa shaqaalaha runtii shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku saad aad u jeceshihiin ayay jecel yihiin wax kalena ma aha markuu ninku soo maro wasiir ku-xigeenka wuxuu yeeshaa samir iyo dhegeysi sababtoo ah inta badan cidlaad fadhidaa waxaad qiimeyn karaysaa markuu wasiirku biisiga ah siday ahaan jiray hadda shaqaalaha biisu ka noqoto markaa runtii horta waan wadaagnaa Cabdirashiid waxaan wadaagnaa engineers wuxuu ahaa mechanical engineer anuguna waxaan ahay civil engineer waa labada mas-uul ee aan marnaba ku qoran taytaladooda engineero sababtoo ah shaqada nimika haynaa maha shaqo technocrata waxaanu haynaa shaqo siyaasadeed markaa maadaama shaqo farsamo aanad haynin inta badan waxaan wadaagnaa engineerskaas oo waa mechanical engineer waxaa kaloo aan wadaagnaa Cabdirashiid hal munaasabad ayaa xil noogu wada wareejiyey 2018 markaan xilka la wada wareegaynay oo wasaaraddan aanu wadaagaynay oo wasaaraddan laba qaybood laga kala dhigay Cabdirashiid waxaan wadaagaynay shaqo ahaan waxaa jira NDP2 ama qorshaha labaad ee qaranku wuxuu ka kooban yahay 7 tiir oo ka mid yahay tiirka kaabayaasha dhaqaalaha isaga nagu hogaaminayay oo waxaanu hayn cross cut waxa kaloo aanu wadaagaynay secretarialka qaybtaas ee NDP2 marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wasaaradda kuma cusbi waxa kaloo aan jecelahay hal qodob inaynu inta badan awoodda saarno shaqada wasiiradu meel kastaba ha joogaan waa isku mid sidoo qoraayo xeer 71 2015 xeerka dhismaha wasaaradaha iyo hay'adaha xukuumaddu inta badan wasiirku wuxuu celiyaa waa istaraatiijiyo iyo siyaasado iyo xeerar iyo halbeegyo marka wasiirku meel kastuu joogo shaqo isku mid ah ayuunbuu qabtaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin waa mandate-ka wasaaraddaas waxaan jecelahay waxaad ogtihiin markaan joogay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa jiri jiray 5 halbeeg oon u qaadan jirnay inay ahaayeen halbeegyada inta badan nabadgelyo darrada ku keena Somaliland waxaa qayb ka ahaan jiray arrinka dhulka sidaydana waxaan ahaa dadka dhulka ugu fog waxa aan jecelahay inaan halkan aan ka xuso waxaa la yidhahdaa sharcigu waa buul haddaad ku jirto roobka iyo dabaysha iyo wax kasta waad ka nabadgelaysaa waxaa dhacday 2013 anigoo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa muran dhul ayaa soo galay wasaaradda waxa ooli jiray ku dhawaad 380 kiis oo dhul ah oo qaar ka mid ay socdeen 20 sanadood waxa markaa dhacay waxa la aasaasay waqtigaas oo shaqeynaysay guddida kagarnaga dhulka iyadoo processkii la marin ayaa waxa dhacay ay maxkamadda sare go'aan ka gaadhay warqad baan qoray junior baan ahaa waxaan ku qoray inay ka baxaan arrinkaas sideedana sharcigu ku fari maayo maxkamadda ama bahda garsoorka in qof executive-kii warqad u qoro marka waxaan jecelahay duruufta aawadeed dhulka aad baan uga durgi jiray laakiin waa nasiib maanta inaan ka mid noqdo bahda dhulka waxaan ilaahay ka rajaynayaa waayo aragnimada iyo duruufihii aan ogaa insha allahu inaanay dhici doonin maanta wax caqabada oo dhib ku ah dhalinteennii Somaliland ama dhalintii Hargeysa inanku inuu ka warwaro siduu dhul u heli lahaa intuu ka warwari lahaa siduu guursan lahaa taasina waxaa isleeyahay waa xil iyo waajibaadina saaran si aynu dhalinyaradeenaasi aanay uga warwari lahayn dhulkaas dhulkuna qofku wuxuu ku leeyahay intuu ka degayo waxaad ogtiin dhulku ganacsi badan buu galay taas waxay saashay inaanu qofku in badan uu ka warwaro siduu uu dhul u heli lahaa waxaan rajaynaynaa annagoo kaashanayna talada
madaxweynaha iyo golayaasha deegaanka insha allahu dhalinyarada reer somalilan inaanay ka warwari doonin dhul ay ku guursadaan ay dowladdu insha allahu ay u samayn doonto qorshe ay dadkaasi ku heli lahaayeen dhul ay ku degaan oo ay maalinta ay u baahdaan guur ay xagga xukuumadda u iman doonaan amba maayarada oo la odhan doono waare waan guursanayna dhul baan u baahannahay dhulkuna uu ka bixi doono gacanta ganacsiga iyo ka ganacsiga insha allahu markaa runtii waxaa kale oo aan jeclay inaan weeleeyo tala soo jeedintii dhammaan injineeriska sababtoo ah maadaama aan injineer ahay waxaan dareemayaa inaanay jirin wax la yidhahdo building codisk waxaan isticmaali jirnay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka markaan joognay codiska maraykanka ee ashto la yidhaahdo waddan kastaana waxaa muhiima inuu isticmaalo ashto waxaa loo isticmaalaa xagga waddooyinka lakiin waxaan u baahan nahay building codiskii somaliland ee lagu eegi lahaa tayada iyo tilmaamaha guud ee dhismaha inaynu insha allahu samayn doono waxaanu insha allahu ku wada shaqayn doonaa maamulada gobollada iyo degmooyinka